in walaaltinimo lagu wadaaqo dadka soo barakacay oo carro ka yimo soo hayaan baabuurtu keenteen in la soo dhaweeyo deegaankana nabad lagu wadaaqo nabad lagu wada joogo wixii hore laga gudbo walaal la wada noqdo shaaha iyo shaadar ila cabo dhalinyarada wali ugu baaqaynay dadka shaaha iyo shaadar la cabaan oo haweenka iyo caruurta dal kulligood ay wacyi galiyaan ma sha Allah waa soo dhaweynaynaa nabadda Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha siyaadi marwa xawiiko furo ka urur ahaan maxaa isku xilqaanteen dhulkan miyiga inaad ka qabatin haday taa waxbarasho dhulka waxbarasho ma leh haday taa tacliin maanta tacliin sar ma lahan maxaad marka u qabateen dadkaas walaalihiina ee remiga 40 sano ka badan waxay haysatay colaad fara badan waad ka warqabteen dhulkan dadka degan waa dad wada dhashay waa wili abtigiis iyo gabari abtigeed dadkan muddo ayaan wacyi gelinaynay haweenka nabadda annagoo ah oo baabuur badan wadana ayaa labada dhinac ka soo kala aadnay tuulooyinkooda miyigooda dhamaantood wacyi gelin baan siinay inay nabadda macaantan u sheegnay dagaalo xun baa wal ka socday hadda dagaaladii waa ka tanasuleen aad bay u degan yihiin wax yar oo wacyi gelin waxay u baahan yihiin wax isfahansiiyo oo shaah iyo shaadar inta wada cabaan isdhex galaan ayaa u dhiman ayakana Ilaahay baan ka rajaynay qaataan anaga xabiib ahaan waxaan u ballan qaaday hadii meesha nabad ka dhacdo wada degan inaan dugsi quraan ka dhiso oo ummadda halka wada degan ay quraan ka wada dhigtaan ayagoo qabiil ku dhiganayeen ku dhigan deegaanku wada dhiganayo inaan dugsi quraan ay quraanka ilmuhu u dhigtaan inaan ka dhiso ayaan u ballan qaad sidoo kale waxaad la taaganahay gudoomiyaha ururka nabadda isdhexgalka ee gobolka Mudug maamul ku soo dhawow waxaad iga warbixisaa dareenkaaga sidoo noqdo maanta markii aad aragtay bulshada wada dhalatay oo wada qadeynaysa oo wada sheekaysanaysa sida ay muuqata ciidamada isku dhex jira saraakiisha isku dhex jirta haweenkii isku dhex jira bal maama dareenkaaga ka farceli بسم الله هداد ويديسي markii aan arkay maanta barwaaqada iyo isku dhafka iyo gogosha nabadeed oo dadkii reer miyiga ahaa ama dadkii tuulooyinka aanu anagu rabnay wacdi gelinta inaan gaarsiino aan rabnay waxa weeye hadaan aragnay dadkii oo wacdi gashan oo iyagu diyaarsan oo goglahoodii nabadda dhiganaya oo waxa weeye isdhex galay mar horeeto oo wada daaqahayo aan kala qowqabayno waa Ilaahay nabadii farxada la soo koobi karin galabta farxadayda inaba ma qiyaasi karo sababtoo ay tahay weesh qof walba bogta asamahay ama haabay baa aniga meesha bogta waxay ahayd nabadayntii gaalkacyo aanu ka soo shaqeynayna muddada hadda 4 sano ah oo waxa weeye aanu soo aragnay macaankeedii hadda aanu ku gamano magaaladii ku degto bulshadiisa aamintay waxaanu islahayn faanoole fari kama qodna meesha hadhay iyo dhibta hadhay waxa weeye waa meelaha miyiga ah oo maaragtay dhibaatadu Semberi ay ka dhacdo oo dooxatooyinka iyo geela la kala bursanayo iyo duurarka la isu galaya ay ku badan tahay dhowr jeer oo hadda ka horeysay wacdi gelinta waa keenna anagoo gabdhaha nabadda ah tuulooyinka waa soo wacdi gelinay qarqooraan tagnay bitaalaan tagnay godad baan tagnay waxaan tagnay gacna fale bale buslaan tagnay run ahaantii wacdi gelin badan baanu halkaas siinay sida aan wacdi gelinta iyada ula tagnana dadkii hadda aad bay isu fahansan yihiin waa u jeedaan nabcada hadda maanta meeshaan halka ka jidha inaan la soo koobi karin haddana waxaanu jecelahay ilaa iyo nabad waarta oo dadkaasi ay ku wada naaloodaan oo rasmi ah oo meel kasto ay deegaan ka dhaco iyo meel kasto deegaan ay leeyihiin ay ku wada degaan sidii hore umadu ahaan jin ay noqdaan inaanan ka harinin nabadayntaas inaanu iyo wacdi gelintaas ku wadno inaanu taageero wixii aan ku taageeri karo aanu ku taageero quluub iyo nafsi iyo maalba hadda insha Allah khayrkaas ay noqonaysaa aad baad u maasantahay